Cabaaralihii subaxnimo ee saaka ayaa waxaa magaalada Buuhoodle ka bilaabmay olole ballaaran oo lagu dhisayay wadada wadnaha ah ee dhex marta magaalada Buuhoodle waxaana saaka dhismahani wadada ka qayb qaadanayay golaha deegaanka isimada gobolka Cayn Culimaaudiin ururada dhalinyarada kuwa haweenka ardayda dugsiyada kala duwan ee magaalada Buuhoodle iyo guud ahaanba shacabka qaybihiisa kala duwan ee ku nool magaalada Buuhoodle kuwaasi oo wajiyadooda laga dheehanayay farxad aan la soo koobi karin dhinaca kale waxaa si wada jira loo duminayay dhismayaasha sharci darrada ah ee ku sii hadhay wadada waxaana saaka cagaftu ay si rasmi ah u bilowday shaqada wadada wadnaha ah ee magaalada Buuhoodle haddaba waxaa wadada ka warbixiyay afhayeenka golaha deegaanka dhinaca kale waxaa iyaguna ka hadlay isimada iyo cuqaasha gobolka Cayn Allah raxmaanka mahad kale waa 8 Abriil maanta waxaanu bilownay si qaybtii saddexaad aanu bilownay qaybtii saddexaad maanta waxaanu bilownay wadada weyn ee dhex marta magaalada Buuhoodle insha Allah taala waana dhamaystiri doonaa waxaana ka dhigi doonaa wada laamiya oo dadku inuu ka anfacda bilicda magaalada wax ka tarta nabadgelyo ka tarta caafimaadka wax ka tarta insha Allah dadkana waxaanu ku boorinaynaa in mashaariicda iyo horumarka la iska rabtaago maanta aan joogno 8 Abriil 2014 waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalin taariikh leh waa maalin xasuus qor leh waa maalin weyn waa maalinta horumar aynaan indhaweyd hore ugu kicin aynu ku kacayno oo ah wadadii wadnaha ahayd ee halbowlaha magaalada Buuhoodle sameynteeda diyaarinteeda qurxinteeda run ahaantii wadadu aad bay ciriiri u ahayd imika aad aragtaan bilicda iyo sida dhirtii u soo baxday iyo sida wadadii u qurux badnaatay aad iyo aad bay magaaladu u qurux badnaatay waxaa jirtay dhul iska bannaan inuu ahaa oo qof waliba gurigiisa wajahadiisa uu guri kale ka dhisayay haddii barnaamijkani maanta uu hirgalay insha Allah way inoo hagaagaysaa waxba inaga xumaan maayaan halyeeyada u kacay waxaan leenahay la garab siiyo la garab istaago waad aragteen oo maanta Soomaaliya haddii meel yar oo suuqa la damco in la banneeyo ama wada xiran la banneeyo ilaa ay dhibaato ka dhacdo lama banneeyo wadada weyn 2 kiiloomitir iyo bar in ka badan waxaa ka dhisnaa sandaqado tembareeriya brendooyin guryo buushasha iyadoo oo wax dhibaato aanay ka dhicin ayaa la banneeyay ilaahay baana waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ugu baaqaynaa bulshooyinka muslixiinta ah ee horumarka jecel haday tahay qurba joog haday tahay guda joog ganacsato nooc kasta oo bulshada ah horumarka ballaaran inay ka qayb qaataan waxaan ku guubaabinaynaa inay ka qayb qaataan wadada Buuhoodle iyadoo ah wada Soomaaliyeed aan ahayn wada meel cid gaar leedahay iyadoo aad ogtihiin in ay tahay Buuhoodle meesha dalka isku xidha cid kasta marto qof kasta oo Soomaaliya meel ku nabad galo sharaf ku leeyahay ay tahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u maleynayaa subax ay iga farxad badan tahay intii aan Buuhoodle ku noolaa oo subaxii ugu wacnaa ee aan arko dadkayga wax qabsanaya oo weliba wax qabadkaasi u yahay mid aan dawlad mooyaane aan shacab la isodhan karin uu qaban karaa waad aragteen wadada intay leeg tahay dadka ayaa u babacdhigay bismillaahir rahmaanir rahiim saaka markii ahayd 6 subaxnimo maalin talaada 8 bishii saddexaad ayaa waxaan bilownay wadada weyn ee halbowlaha ee dhex marta magaalada Buuhoodle ayadoo si fiican u soconaysa dadweynuhuna ka wada qayb qaateen dhalinyarada ururka haweenka ardayda min garboodka uqaasha golaha sare ee dhaqanka gobolka Cayn qof waliba wuxuu u taagan yahay sidoo dalkiisa iyo dadkiisa ugu qaban lahaa u fakari lahaa fikirka uu gelin lahaa dalkiisa waxaad ku tashataan markaa waxaan farayaa dadweynaha reer Khaatumo ama dhulbaante ama reer Khaatumo inay jeebka furaan dalkooda iyo dadkooda u tashadaan ugu dambeyntii ayaa waxa isaguna wadadani ka hadlay Garaad Cabdilaahi Garaad Soofe isagoona ugu baaqay ummadda islaamka meel kasta oo ay ka joogaan daafaha caalamka inay ka soo qayb qaataan dhamaystirka wadadani saaka la bilaabay inta ka bacdi waxa weeye haddayna reer Buuhoodle awla badan baynu soo qabanay dadkuna hadduu isku tashado wax qabsado dadaal waxbuu qabsan karaa wax qabsan yiraahdo waxbuu qabsan karaa awla badan baynu soo qabanay airportka inoo gabagaba ilaahay baa mahadle waxaan mahad weyn ugu celeynaa nimanka qurba joogta oo howlooyin ka geystay oo gacan weyn siiyay waxaan dadka reer Buuhoodle ugu baaqaynaa dibad iyo guud mid kasta ha jireene
jidkaa la bilaabay saakay magaalada loo bilaabay ee laga dhigayo inay qayb ka soo qaataan qof kasta awoodda uu leeyahay inuu kaga soo qayb qaato qofkii kaga soo maal kaga qayb qaadanaya iyo qofkii muruq kaga qayb qaadanaya iyo qofkii maskax kaga qayb qaadanaya inuu ka soo qayb qaato wadadan weyn ee dhex marta magaalada Buuhoodle ayaa xilliyada roobka dhibaato xoogan ku haysay gaadiidka iyo shacabka magaalada Buuhoodle balse imika ayaa waxa soo baxay bilicda wadada kadib markii laga burburiyay dhismayaasha sharci darrada ah dhinaca kale waxa ay ugu baaqeen guud ahaan baysimada iyo waxgaradka deegaanku in laga soo qayb qaato dhamaystirka wadadani saaka la bilaabay Cabdi Casiis Aadan Jaamac TV-ga caalamiga ee Somsad Buuhoodle